Bismillahirrahmanirrahim. Waxaan halkan kasoo gudbin doonaa cashar ku saabsan Spring Boot annagoo rabno inaan ku xirno database-ka loo yaqaano PostgreSQL. Waxaan isticmaalaynaa technology-ga loo yaqaano JDBC hadduu ilaa idmo. Waxaan isku dayi doonaa markii Spring Boot inaan tijaabino inaan ku xirno PostgreSQL annagoo isticmaalayno JDBC template. Waxaan kaloo isticmaali doonaa Docker containerization noo sameyn doono annagoo ku install gareysan computerkeena Postgres in aan isticmaalno ayaan isku daynaa. Waxaan noo suurtagelin doono software-kan Docker. Sidoo kale markaan application-keena sameyno testing API iyo waxyaabahaas waxaan ku tijaabin doonaa hadduu ilaa idmo Insomnia. Haddii aad rabtid Postman iyo waxyaabahaas waa isticmaali kartaa. Waxaan isku daynaa marka Spring Boot-keena application-keeni Java in aan ku xirno database-kaas loo yaqaano PostgreSQL annagoo u marayno JDBC template. Waxaan soo jeedin doonaa anigoo Maxamed Abdullahi Maxamuud Shuuriye. Waxyaabaha marka prerequisite u ah ama looga baahan yahay qofka inuu haysto ardayga ama qofka developer-ka. Number one waa in qofka uu haysto JDK waa inuu install gareysan yahay computerkiisa. Sidoo kale integrated development environment waa inuu u setup gareysan yahay. Annaga hadda waxaan isticmaali doonaa IntelliJ IDEA, Community Edition, Eclipse ama NetBeans. wixii kale aad haystid waa isticmaali kartaa. Laakiin tutorial-kan ama cashirkan waxaan ku sameyn doonaa IntelliJ IDEA isagana ugu roon waxa la isticmaalo. Sidoo kale waxaan arki doonaa Docker in aan asagana isticmaalno oo aan application-keeni iyo database-kii aan containerization u sameyno. Sidoo kale waxaan isticmaali doonaa in hadhowdii aan ku test gareyno Insomnia. Adiguna Postman waa isticmaali kartaa laakiin hadda waxaan isticmaali doonaa Insomnia si aan u tijaabino inuu shaqeynayo application-keena iyo in kale. IDE-ga iyo waxyaabihii kale markaad soo setup gareysatid waxaad kusoo shuban doontaa Docker. Dockerka markaad kusoo shubanaysid haddii Windows aad ku shubanaysid Windows-gaaga marka qaar waxaa laga yaabaa inuu kaa diido inuu soo markaa install gareysid aad soo run gareysid. Wuxuu ku dhihi doonaa meelaha qaar in aad features soo check gareysid. Waxaad tegi doontaa control panel-ka programs Windows features-ka meesha on iyo off laga dhahayo. Labadan feature Hyper-V ama hypervisor-ka iyo containers-ka ayaa check soo saaran doontaa. Hadday check ku saaran yihiin sometimes waxaa laga yaabaa virtualization-ka by default in enabled uu ku yahay Windows-ka qaar Windows 11-ka. Haddii uu kaa diidana waa inaad tagtid meelahan oo check soo saartid. Sidoo kale BIOS-ka waa inaad tagtid oo asagana virtualization-kii enabled aad kasoo dhigatid. Haddii intaas aadan sameyn ma ku shaqeyn doono. Windows-ka qaar marka Windows 11-ka sida hadda midkaan igu jiro kale by default waa enabled ma lahan inaad meelo badan aad tagtid. Kaliya Docker ku install gareysan doontaa sidaas ayuuna kugu shaqeyn doonaa. Dockerka waxaad tegi doontaa website-kiisa Docker Hub waad soo download gareysan doontaa kadibna install gareynaysaa sida caadiga ahayd. Markaad kusoo install gareysatid haddii aad rabtid inaad fiirisid version-ka uu yahay CMD waxaa ku qori doontaa Docker space -- version oo version-ku yogsiin doonaa ama system information-ka oo Docker-kaaga inaad raadisid ama help oo kale iyo waxyaabahaas markaa u baahan tahay in commands-kii iyo aad fiirisid oo aad sameyn kartaa. Docker-ka markaad soo install gareysatid next waxaa noqon doono in project-geeni aan kusoo darno file-kan loo yaqaano Docker compose.yml extension-kaas oo wataa. Docker compose.yml waxaan ku dhex qori doonaa intaan services-ka marka aan kusoo dhex sameynayno waa Postgres iyo pgadmin oo ah graphic user interface-kii Postgres-ka in browser-ka aan kasoo access gareyn karno. Container name uu leeyahay magaca rabtid oo la bixi kartaa. Image-ka magaca rabtid. Restart markasta inuu soo restart gareeyo. Username iyo password aan u sameynay waa root. Database-ka uu ku xiri doono waa test database.
port numberkiisana waa PostgreSQL default portgiisa. Serviceka labaad waa pgadmin, asagana container namekiisa siin doonaa. Imageka waxaan leenahay dpage/pgadmin4. intaan sidaa markuu qaadan doonaa email iyo password oo sameyn doonaa, email iyo password. pgadminkan browserka markii la tago waxaan kasoo access gareyn doonaa localhost : port numberkan 5050. haddii 5050 oo mid kale isticmaalayay waxaad isticmaali doontaa another port oo 5051 5053 midkaa rabtid ayaad ku bedelan kartaa. filekan markaad diyaarsano oo aan projectigeena dhexdiisa ku abuurno waa inaan rangareynaa. sidee u rangareynaya marka? waxaad tegi doontaa terminalka oo projectigaada ku jiro, waxaad qori doontaa docker compose app d ama detached mode. haddii inta aan qortid wuxuu rangareyn doonaa labadan service meesha kusoo qoray, Postgres container namekana abuuri doonaa, pgadminna container namekana loo abuuri doonaa. labadiiba waa la rangareyn, inta la abuuro ayaa la rangareyn doonaa. markii la rangareeyo kadib waxaan imaan doonaa browserka, waxaan ku qoraynaa localhost 5050gan waxaan ka keenay port numberka meeshaan ku qoran. haddii wax kale uu ku yahay waa inaad asaga isticmaashid. loginkan u geeni doonaa, waxaan soo gelinaynaa marka emailkii iyo passwordkii aan meeshaan kusoo sheegnay shauriya@gmail.com iyo root oo passwordka ah. haddii aad khaladid ma shaqeyn doono. login markaad aad intuu keeni doonaa, serveriska waa faaruq, right click ayaan ku sameyn doonaa, kadib server cusub ayaan connection u abuureynaa. waxaan kusoo darsanaynaa new server, magacaan la bixi doonaa, kadib waxaan tegi doonaa qaybta connectionska, waxaan kusoo darsan doonaa connectionkeena ama hostnamekeena. sidoo kale port numberka by default isaga dooranayo, usernamekii passwordkii oo docker compose fileki aan kusoo sheegnay oo meeshaan noogu qoran ayaan isticmaali doonaa, usernamekan iyo passwordkan. intaas markii laga soo gudbo oo aan set up gareysto, qaabkaan noqon doonaa magacaan la baxay connectionkeeni. sidoo kale qaybta connectionka waxaan dhahaa hostnameka iyo portiga, username iyo password. save aad dhihi doontaa, connectionka uu ku abuuran yahay. connectionka markaa abuuratid markaas waxaad awood u leedahay in meeshaas aad table ku dhex abuuratid, hadhow si projectigaagii ama applicationkaagii uu xog u keeni karo kana soo aqrin karo. docker aan ku install gareysanay, sidoo kale waxaan sameysanay docker compose filekii projectigeena kusoo darsanay, and then waxaan pgadminkii ayaan configuration ku sameynay oo connection u sameynay. kadib waxaan imaan doonaa projectigeena qaybta dependencies waxaan kusoo darsan doonaa laba dependencies, PostgreSQL oo aan isticmaaleyno iyo JDBC oo ah technology-ga oo connectionka noo sameyn doonto. labadaan kusoo darsan doonaa, haddaysan kugu jirin hadhowdi kuma shaqeyn doono. labada markaa kusoo darsado dependencieska waxaan u gudbi doonaa fileka loo yaqaano application.properties. configuration waxaan ku sameyneynaa Postgreski data sourcegiisa, URL namekii waa JDBC Postgres, localhost 5432, just database namekaaga inta ku sheegi doontaa. meesha anaga just nooma ahan, wuxuu noo yahay haddaa fiirisid testdb, meeshaan magacaas oo la bixi doonaa. sidoo kale username password iska leeyahay, and that source driver class namekeenuna waa Postgres.driver SQL driver. intaan waxaan ku qori doonaa filekan loo yaqaano application.properties. intaas markaan configuration ku sameeyo waxaan u imaan doonaa modelkeeni, waxaan abuuranaynaa class ama record midkaa rabtid. classka markaan abuurano, classkan waxaa lagu magacaabaa customer, wuxuu iska leeyahay laba variable ID iyo name. dependencieskeena waxaa noogu jiray lombok oo noo suurta gelinayo in constructoradii iyo get iyo set aniga aanan abuurin oo asaga notationskan uu isiiyey aan isticmaalo si ayaga ay igu abuuraan, anigana waqti badan uusan iga bixin. kan wuxuu noo sameyn doonaa markaa parameterized constructor, kan wuxuu sameynaa no argument constructor. get iyo setna waxay sameyn doonaan get ID get name iyo set ID set name. classkii hadda uu noo abuuran yahay. next wuxuu noqon doonaa JDBC template, waa qaab ama hab aan u isticmaali doono in database-keeni aan ku xirano
queries aan execute gareyno haddii ahaan lahayd insert, select, update, delete wixii oo dhan annagoo wax code tiro badan aan qorin. Classkeena oo service classka oo business logica ama operationska iyo methodiska aan ku qoranayo waxaan kusoo dari doonaa JDBC template object variable aan ka abuurtay, sidoo kale constructor injectionkiisa waan sameyn doonaa. intaa markaa sameeyo next waxay noo noqon doontaa in classkii customer service aan abuurto oo annotationkii add service aan ka kormariyo iyo customer controller oo ah requestkii ama endpointskii meeshaan ku qoran lahay isagana waxaan ka dulmarin doonaa add rest controller. intaas markaan soo aragno controllerskii iyo service classkii, ugu dambeyn waxaan tegi doonaa insomnia isagaan ku tijaabin doonaa. kana waa GitHub linkiga halkaan ayaan soo dhigi doonaa codeka oo dhammaystiran hadduu ilaahay idmo. waxaan isku daynaa marka inaan practice gareyno inta hadda aan aragnay. waxaan tegaynaa IntelliJ-ga editorkan maadaama uu yahay community oo free ah badanaa featureski Spring ma lahan oo midkii ultimate-ka ma isticmaaleyno. waxaan kusoo darsaday plugin noo suurtagelinayo in Spring initializer aanan u aadin browserka oo aan inta ka isticmaalo. pluginkaas haddii aan ku tuso waxaa loo yaqaanaa Spring Start Boot Project. pluginkaas wuxuu ku sahli doonaa marka adigoo meeshaada joogo inaad abuuran kartid. waxaa loo yaqaanaa Start Spring Boot Project oo wuxuu ku suurtagelinaa Spring Bootkiina inta ka abuuran kartid. waxaan leenahay marka click markuu noo soo saaro wuxuuna siin doonaa marka Spring Initializer, Maven, Java versionka uu noo dooran yahay. magaca ula baxeeno example waxaan leenahay example JDBC ama JDBC aan hormariyo. waxaan leenahay JDBC example demo JDBC. intaan kale waxba kama bedeli doono sidiisa u dhaafi doonaa meelahan. meeshaan waxaan kusoo darsan doonaa dependencies-ka aan u baahanahay maadaama aan database ku xirayo. waxaan u baahanahay PostgreSQL driver, sidoo kale request maadaama lasoo dirsanayo Spring Web lagama maarmi doono. JDBC asagana u baahanahay Spring Data JDBC. waxaan kaloo u baahannahay Lombok oo noo sameyn doono constructorskii iyo annotationskii kale. intaan waxaan isleeyahay inta muhiimka aan u baahannahay waxaan isaga darsan doonaa DevTools. Developer Toolskan waxaa loogu talagalay wuxuu ku sahli doonaa live reload applicationkaagii in adiga oo aan mar dambe aan dib u rangareen in uu changeski markaa control safe dhahdidba automatically ku apply gareeyo browserka. waxaa loo yaqaanaa marka live reload. intii aan u baahnaa oo kuwaana aan kusoo darsaday JDBC iyo PostgreSQL kaas ugu muhiimsanaay. kadib waxaan dhihi doonaa generate. wuxuu sameyn doonaa applicationkeenii inuu isla meeshaan noogu furo new window ayaan dhihi doonaa. waxaan isku dayi doonaa marka in shaqadii inta ugu badneed aan qabano. intaana marka shaqadaan qaban waxaan soo rangareyn doonaa Docker Compose-keenii Docker Desktop. Docker Desktop waa igu install gareysan yahay. haddii aad adiga rabtid soo install gareyn kartaa. hadda midkaana rangareysan aan joojiyo shaqada ayaan ka joojin doonaa. haddii aad rabto markiina ogaatid nooca Dockerka ama versionka ku install gareysan waxaad dhihi doontaa cmd. haddii aan tago waxaan dhihi karaa sidan. waxaan leenahay Docker version ama -v haddaad dhahdid ama -v ama versionka install gareysan waa version 26 kaas ay ugu jiro. waxaan isku dayaynaa marka intaan iska soo xiro containerskan kale uma baahni. Dockerka markaa imaadid sidaan noqon doonaa. project kasta marka wuxuu sameyn doonaa pg admin, labadan service iyo Postgres. annaga waxaan isku dayi doonaa midkeenan cusub oo demo JDBC in asagana u sameyno. Dockerkii uu noo diyaarsan yahay. waxaan kusoo darsanaynaa
file lagu magacaabo intaan file ku tagin bom.xml haddii ay maadid waxaa meeshaan ku jiro aan ku tuso wixii aan kusoo darsaday waa JDBC aan kusoo darsaday dependency-gaas Spring Web DevTools PostgreSQL iyo Lombok intaan kusoo darsaday waxaan abuuranaynaa marka file cusub oo loo yaqaano docker compose.yml docker compose.yml wax kale kuma qori doono kaliya intii noogu qorneed ayaan kusoo qoranaynaa wixii aan u baahannahay oo ka bedelinaynaa intaan ayaan soo qaadan doonaa waxaan geeni doonaa meeshaan container namekeena waxaan ka dhigaa Postgres demo JDBC passwordka usernameka iyo passwordka root siisa u dhaafi doonaa database-keenana waxaan ka dhigi doonaa waxaan u bixin doonaa database-keena test kaliya sidoo kale containerkan waxaan u bixin doonaa pg admin portkan marka ma taaban dooni maadaama problem uusan ka jirin kan waxaan u bixin doonaa pg admin demo JDBC restart always kana kama bedeli doono shurija@gmail.com iyo root portiga uu isticmaalayo waa 5050 waa arki doonaa hadda kuwan mid kamid ah ayaa 5050 isticmaalayo kan waa 53 kan kale haddii aad fiirisid waa 5050 laakiin hadda waa ma rangareysno 5050 kan la isticmaalaynaa haddii kale aad soo rangareysan kaas kale kan ma isticmaali kartid docker compose-kan waxaan sameyn karaa inaan inta ran kalo waxaan kaloo sameyn karaa inaan imaado meeshaan waxaa noogu taalo terminal oo cmd meeshaan waxaan dhihi karaa docker versionkiisa waa 26 haddii aad fiirisid meeshaan kusoo qori doonaa sidoo kale haddii aan rabo filekii docker compose inaan rangareeyo waxaan leeyahay docker meeshaan waa ka rangareyn karaa buttonkan laakiin inta commandiga aan qoro docker compose up in detached mode waxaan fiirinaynaa marka meeshaan haddaa fiirisid containerkii demo JDBC Postgres iyo pg admin waa la abuuray waana la start gareeyey haddii aan fiirino docker ps labada xabo oo ii rangareysan waa kuwana waa Postgres demo JDBC iyo pg admin 4 wixii rangareysnaay imageskaas ayaa noo rangareysan meeshaan lagu soo daro haddaa fiirisid labadaba waa ii rangareysan yihiin kuwaan oo kale waa iska xiray hadda demo JDBC waa projectigeeni wuxuu iska leeyahay laba service pg admin 4 iyo Postgres demo JDBC haddii aan rabo pg adminkan inaan booqdo localhost 5050 ayaan booqan doonaa waxaan kusoo geli doonaa usernameka iyo passwordka inta ku qoran aan hadda tago browserka intaan wax kala sameynin waxaan leenahay localhost 5050 enter wuxuuna keeni doonaa meeshaan waxaan kusoo geli doonaa marka gmailka meesha igu qornaa passwordkan wuxuu ahaa root kadib login ayaan dhihi doonaa waa soo gala haddii aad fiirisid wax server meeshaan iima jiro waxaan rabaa marka serverkan inaan kusoo xiro PostgreSQL si ognaaba right click ayaan dhihi doonaa register serverkan waxaa la bixi doonaa demo pg admin magacaas la bax magaca rabtid qaybta connectionka markaa imaano waxaa leenahay Postgres port numberka ma taabanayay sidoo kale usernameka waa shuriye aan soo fiiriyo usernamkeenu noo saxan yahay usernamekeenu waa root waa inaa bedelaa marka usernamekeenu waxaan ka dhigi doonaa root passwordkiisuna waa root kadib waxaan dhihi doonaa safe hadda waan galay oo pg admin noo abuuran yahay wax database ilaa ay hadda waxaa noo sameysan haddaa fiirsi database la yiraahdo test database-kan noo abuuran marka qaybta schemada haddii aan tagno tableka wax table nooguma jiro marka weli wax table nooma abuuran waxaan u imaaneynaa marka
next step wuxuu noo noqon doonaa maxaa la dhahaa haddii aan docker compose-kii aan configurationkiisa soo dhameynay waan iska soo xiri doonaa. waxaan imaan doonaa application.properties. meesha waxaa noo yaalo haddaa fiirisid application.properties. inta waxaan ku sameyn doonaa ayadana configuration oo data source-ga ayaan kusoo xiri doonaa. Spring port numberka oo aniga isticmaali doono 88 ma ogolo, waan ka bedeli doonaa. waxaan leeyahay server.port numberka waxaa ka dhigtaa 3000. waxaan configuration ku sameyn doonaa data source-ga. waxaan leenahay marka spring data source url-kiisa wuxuu noqon doonaa jdbc postgresql localhost port numberka wuxuu ahaa 5432 database-keena wuxuu ahaa test. and then spring username-kii password-ka ayaan sheegi doonaa. username-keena wuxuu ahaa root. spring password-keena wuxuu ahaa root. sidoo kale waxaan configuration u sameyneynaa spring.data source driver class name asagana waxaan ka dhigan doonaa class ayaan si qaldan u qoray. class name asagana waxaan ka dhigan doonaa organization.postgres.driver. configurationka waa sameynay, afartan sadar aan kusoo koobeynaa oo wax badan masii gelgelayno. next step dockerkii markaan soo abuurnay aan soo rangareynay, then pg adminkii aan kusoo xirnay oo database-kii iyo connectionka waxay noo sameysan yihiin. application properties-keena waxaan ku qoreynaa intaan markii aan sida abgareyno aan iska soo xiro. next wuxuu noo noqon doonaa model cusub inaan abuurano. number 1 waxaan abuuranaynaa glass-keenii. glass-kan waxaan bixin doonaa customer liira ayaan abuuranay. glass-kan waxaan u sameyn doonaa 2 variable si shaqadaysan u badan. waxaan u sameynayaa integer id, sidoo kale waxaan u sameyneynaa string name. haddii aan rabo markaa get iyo set iyo constructors waan u abuuri karaa, laakiin waxaa ii yaalo meeshaan lombok isagaan isticmaali doonaa. all argument constructor u sameey. sidoo kale waxaad u sameysaa no argument constructor. sidoo kale waxaad u sameysaa getter iyo halka xabo ugu dambeeyo waa setter. gediisad u sameey. meeshaan markaa wax badan u soo celceliyey, waxaa nooga filan keliya meeshaas star inaan dhahno ayaga dhan hal mar soo import garay. glass-keena uu noo abuuran yahay 2 variable oo iska leeyahay get iyo set iyo 2 constructor baa u sameynay. glass-kii markaan abuuranay oo aan dhameynay, next scene wuxuu noqon doonaa modelkii waan sameysanay. service-kii inaan u tagno waxaan sameysanaynaa customer service wax kale ma noqon doono. waxaan ku qoran doonaa all methodskii iyo operationskii si aan u cadeyno inuu yahay glass-kan service. waxaan ka hormarinaynaa annotation-ka at service. waxaan imaan doonaa meeshaan waxaan injection kusoo sameyn doonaa ama aan object variable ka abuuran doonaa glass-kii lagu magacaabo jdbc template. waxaan leenahay jdbc template meeshaan ku jiraa. waxaan ka abuuranaynaa waxaan u baahnaa markaa inaan inject kusoo sameyno constructor-kiisa. aan soo gelinaynaa meeshaan. intaan markaan sameysano next wuxuu noqon doonaa waxaan abuuranaynaa ama aan sameyn doonaa operationskii hadday ahaan lahayd insertion, update, delete waxyaabihii oo dhan inaan sameyno ayaan isku dayi doonaa. waxaan imaanaynaa marka midka ugu horeeyo waxaan abuuranaynaa add customer. waxaan ka bilaabeynaa add. waxaa leenahay marka inaan xog qof soo xareyno ayaan rabnaa. waxaan sameysan doonaa public void add customer. waxaa loo soo baasgareyn doonaa xogta customer-ka. data type-kaas waa customer class. k
kaliya wuxuu sameyn doonaa marka number 1 waxaan abuuranaynaa string SQL ama SQL insert into class name keena waa customer values kala soo gelin doono waxay noqon doonaan placeholder ayaan ka dhigi doonaa waan arki doonaa iyadoo la isticmaalayo parameterized query quotation ka double intaagay sorry sidee u ran gareynaa marka ama aan execute gareynaa query-gan waxaan leenahay jdbc template dot query waxaan u baas gareynaynaa SQL iyo customer parameter ayaa laga rabaa id-ga ayaa soo horeeyo customer dot get customer sida waa small dot get id sidoo kale customer dot get name labadaas xabaa ayaan baas gareyn doonaa id-ga iyo name-ka waxaa laga soo aqrin doonaa haddaa fiirisid waxaa laga soo aqrin doonaa id-ga iyo name-ka intaa laga soo aqrin doonaa qofka wixii uu soo baas gareeyay ayaa laga soo aqrin doonaa insha waxaan soo baas gareynay SQL customer id customer name waxaa kaleeto naga dhiman query SQL id iyo name qofka markii la siiyo intaan wuxuu u baahnaa sidoo kale sorry insertion ayaan sameyneynaa waxaan umaleynaa select sameyneyno meesha waxaan u baahnaa inaan dhahno update maadaama select aanan sameyneyn insert iyo update iyo delete markaad sameyneysid waa inaa isticmaashid methodkan loo yaqaano update hadda customerkii add ayaan dhahnay sidoo kale waxaan sameysan doonaa method noo sameynayo get all customers kan wuxuu noo soo aqrin doonaa all customers waxaan leenahay marka public maadaama all customers ay badan yihiin waxaan ka dhiganaynaa list datatypekiisana class namekeena and then waxaan leenahay get all customers waan soo import gareyneynaa marka listiga meesha marka imaano waxaan leenahay waxaan soo aqri rabnaa all customers select star from customer inta markii la imaado waxaan leenahay return tab naga rabaa jdbc template query-gii markaan u baas gareyno waxaan u baas gareynay sidoo kale new waxaa jiro bean property row mapper customer dot glass bean property row mapper kan wuxuu qaban doonaa in mapping uu ku sameeyo SQL-kaagii tablekiisii columnskiisa iyo glasskaagii customer variableskiisa waa arki doonaa waxaan abuuran doonaa table id iyo name keliya labadaas column ka kooban labadii isku map gareynaa marka haddii aan rabo marka inaan soo aqriyo get customer by id waxaan sameyn doonaa inaan dhaho public meeshii marka list aan dhahay markaan customer aan dhahay hal qof ayaan soo aqrin doonaa waxaan loo soo baas gareyn doonaa id-giisa markiina la siiyo waxaan dhihi doonaa string SQL select star from customer where id is equal to placeholder ayaan u sameyneynaa kadib waxaan leenahay return jdbc template query intaa midkaan la gaarin query-ga markaan u dhiibo waxaan leeyahay parameter iga sugaa soo maaha oo id-ga waxaan leenahay marka new object meeshii marka aan query dhahayay maadaama parameter uu iga rabo waxaan leeyahay query for object kana isticmaali doonaa waxaan leenahay marka objectiga wuxuu qaadan doonaa id comma new beam property row mapper customer dot glass haddaa fiirisid semicolon
query for object waa duplicated ayuu leeyahay laakiin waa isticmaalaynaa kan wuxuu sameynaa query keliya oo parameter waxba ma lahan kana query for object waxaan u dhahnay SQL markaan siiyo waxaa laga baahan yahay parameterkii inta ayaan ku siin doonaa new object id and then beam property row mapperkii ayaan soo qaadanaya kana wuxuu sameyn doonaa hal customer inuu soo aqriyo waxaan leenahay get customer by id haddii intaas uu soo aqriyo waxaa noogu xigo delete customer haddii aan delete gareynayo qofka la delete gareynayo waa in id-giisa lasoo sheego and then simply hore ayaan ka delete gareynaynaa waxaan leenahay string SQL delete from customer where id uu leeyahay intaan kadib waxaan leenahay JDBC template maadaama delete ay tahay waxaan leenahay update SQL id waxaan baas gareynaynaa keliya query-gii la execute gareynayay iyo parameterkan placeholder-kan lagu bedelayo delete aad u fududahay waxaan sameynaynaa markaa ugu dambeeyo update customer haddii aan rabo qof in update gareeyo laba shay u baahanahay id-ga qofka la update gareynayo iyo xogtay lagu update garey lahaa number 1 waxaan u baahanahay id waxaan u baahanahay customer xogtiisa dhameystiran waxaa leenahay marka string update customer magaciisa waxaan ka dhigi doonaa placeholder sidoo kale where meeshaan comada ka reeb where id-gu leegyahay inta waxaa leenahay marka JDBC template.update SQL parameter aan ogala baahan yahay parameter koowaad haddii aad fiirisid waa name customerka loo soo baas gareeyay waxaan leenahay customer.getName sidoo kale comma customer.getId labada parameterba sidaan ayaan ku haysanaa oo baas gareynay hadhoodii qofkaas xogtiisii waa la update gareyn doonaa magacii ayaa laga bedeli doonaa intaan u gudbin marka controllerka waxaan ku laabanaynaa SQL PostgreSQL keeni waxaan soo abuuranaynaa create right click table cusub tablekan waxaa lagu magacaabaa customer columniska uu yeelanayo calaamadan ajkaan ku dhufan doonaa row cusub kusoo dar id-geenu waa numeric primary key ayaan ka dhigan doonaa oo duplicate ma ogolin nullna ma noqon karo sidoo kale waxaan kusoo darsanaynaa namekuna waa character variant ama varchar ilaa iyo 50 xaraf oo kale asagana not null waxaan sameynaynaa markaas inaan dhahno safe kaliya wuxuu yeelanaa id iyo name waa integer iyo string safe markii aan dhaho meeshaan table cusub ayaa soo galay hadda xog waa keeni karaa waana kasoo aqrin karaa waxaan usoo laabanaynaa marka IntelliJ-geeni galaaskii service uu noo diyaarsan yahay customer service waxaa noo dhiman marka galaaskii requestkii loo soo dirsan lahay oo responseska soo celin lahay waxaan abuuranaynaa galaas cusub oo lagu magacaabo customer controller si aan u sheegno galaaskan inuu controller yahay korkiisa waxaan ku qori doonaa @rest controller oo hadhow request ayaa loo soo dirsanaa response inuu soo celina all operationskeena oo dhanna intay ku qoran yihiin galaaskan lagu magacaabo customer service si operationska halkaas ku qoran aan u isticmaalno waa inaan injection kusoo sameyno oo inta keenno private vinyl customer service waxaan kusoo darsanaynaa constructorkiisa aan soo inject gareyno customer service-kan ayaan hadda isticmaali doonaa haduu ilaa idmo waxaan imaanaynaa marka meeshaan requesteski inta ayaa lagu qori doonaa waxaan ka bilaabeynaa midka ugu horeeyo get mapping in xogtii dhan lasoo aqriyo waxaan leenahay public
نحلنا get mapping slash all ayaga dhan in la soo akhriyo public customer meeshaan customer dhaanay waxaan ku bedeleynaa maadaama customers badan la soo akhrinayo list ayaan ka dhigi doonaa list of customer listigaan soo import gareyno java.util get customers waxaan leenahay maadaama methodkii uu noo diyaarsan yahay methodkan waxaa lagu magacaabaa get all customers isagaan u wacanayna waxaa leenahay return customer service dot get all customers shaqo badan kan maan ka qabanayno haddii aan rabo inaan soo akhriyo hal qof keliya get mapping slash id ga ayaan sheegi doonaa oo waxaan dhihi doonaa hal qof keliya oo id gaas kale isoo qabo get customer by id integer id gan meeshaan aan ku sheegnay waxaa laga soo akhrin doonaa url ka ama pathka meeshaan lagu sheegi doono waxaan leenahay marka variable kan parameterka waxaa laga soo akhrin doonaa path variable waaye oo qofka ayaa soo sheegi doono waxaan soo return gareynaynaa customer service get customer by id methodkii ahay waxaan u baas gareyn doonaa id get customer by id intuu noogu samaysan yahay isagaan u wacanaynaa isaga ayaa shaqada noo qaban doona labada get midna xogtii oo dhan midna hal qof waxaan ku xijinaynaa post mapping inaan xog soo gelin karno meesha bida aan capital ka dhigo post mapping waxaan dhihi doonaa public void maadaama waxba soo gareynayn add customer xogaa la soo gelin doonaa xogta la soo geliyo waxaa leenahay customer service dot add customer xogtaan qaad waxaa noogu shubtaa tablekii customer xogtii automatically waxay tegi doontaa add customer ayaa shaqadaas qaban doono oo markii inta la yimaado isaga ayaa noo fulin doono xogtii inuu insertion noo sameeyo post markaan sameynay waxaan ku xijinaa delete cafwan post mapping markii aad isticmaalaysid waxaad sheegi doontaa xogtan bodyga ayaa laga soo dhiibi doonaa oo requestigan wuxuu leeyahay body waa inaad dhahayd markaa request body haddaadan dhihin hadhowdii customerkan empty ayuu ahaan doonaa oo ma shaqeyn doono waa inaad raacsiisaa marka intaas delete oo kale markaad dhehaysid delete mapping waa inaad soo sheegtaa ayadana id waa inaad soo sheegtid qofkii la delete gareynayo waxaan leenahay public void path variable waa sidaa ujeedid asagana waxaan leenahay marka customer service delete customer id ga tirtir qofkaas iska leh waxaan ugu dambeeyo oo aan sameyneynaa waa bot mapping waa update inaad sameysid qofka la update gareynaya id giisa ay sheegi doontaa and then xogtii qofkaas lagu update gareyn lahaa ayaa sheegi doontaa hadaa fiirisi marka wuxuu qaadan doonaa laba shay wuxuu qaadanaa number 1 id gii oo path variable laga soo akhrinayo iyo xogtii bodyga oo qofkii xogtiisa lagu update gareyn lahaa intaas ayuu qaadan doonaa then waxaa leenahay customer marka ugu horeyso inta wax kale la qaban dot set id ga ayaan set gareynayaa and then waxaa leenahay marka customer service dot update customer waxaa ku update gareystaa xogtan lagu soo siiyey meesha ku update garey hadhow waxaa dhici doonta marka qofkii xogtiisa in la qaado oo lagu update gareeyo tusaalahaan anaga waxaan bedelaynay keliya qofka magaciisa ayaan update gareynaynay hadhow magacii qofka ayaa la bedeli doonaa intaan marka waxay noo sameyn doontaa in connectionski ay noo sameeyaan hadaa rabtid waxaad dhihi kartaa request mapping kadib waxaan leedahay meeshaan waxaan ka hormarinaa slash customer intaasaan ka hormarinaa soo hadhoodii slash customer slash all
slash customer slash id mid kasta slash customer ayaa ka hormari doonto qasab ayay noqon doontaa oo inaad soo gelisid slash customer port number kan isticmaali doonana wuxuu noqon doonaa 3000 hadda waa dhameeyey waxaan isku dayi doonaa marka inaan test gareeyo oo aan arko inuu shaqeynayo iyo in kale waxaa imaan doonaa mainka ayaan soo ran gareyn doonaa everything is okay haddii uu yahay asaga ayaan ka arki doonaa haddiisan ahaynna wixii error asaga ayaa noo sheegi doona kan ayaan ran gareyneynaa waxaan fiirinaynaa qaybta outputka waxaan ku tijaabin doonaa insomnia aan sii ran gareysto isaga ayaan ku tijaabin doonaa aan fiirino haddiise wax problema jirin waa inuu soo start gareeya applicationkeena tomcat serverkeena boortiga waa 3000 applicationka waa la start gareeyey live reloadkii waa ku jira asagana wixii oo dhan waa noo sida upgareysan yihiin hadda wax problema ma jiro sida muuqato waxaa imaan doonaa insomnia haddii aad rabtid waxaad sameyn kartaa new request http request meeshan waxaan ku qori doonaa localhost port numberka waa 3000/customer/all hadda wax xoga nooguma jiro waa empty waxaan isku dayi doonaa in aan xog meeshii soo geliyo post markaan xog soo gelinayo bodyga ayaa loo baahan yahay bodyga markaan ku dhufto wuxuu ku weydiin doonaa qaabkee xog soo gelinaya waxaan isticmaalaynaa json format waxaan dhihi doonaa id e name soo siinaa waxaan leeyahay key e value ayuu qaadan doonaa id-ga waxaa ka dhigtaa id1 namekana waxaa ka dhigtaa geedi hadda haddii aan dhaho intaan ka tirtiro haddii aan dhaho send qofkaas waa la xareeyey wax problema kama taagno databaseka haddii aan tagno customer haddii aan right click dhaho view all rows wuxuuna tusi doonaa wixii qof oo meeshan ku jiro haddii qofkii uu soo galay waa arki doonaa waabkana geedii meesha uu ku jiraa haddii qof kale aan kusoo daro tusaale id2 oo kale id-ga waa primary key oo duplicate ma noqon karo waxaan leenahay cali cusmaan oo kale qof labaad aan kusoo darnay haddii refresh aan dhaho oon dib u ran gareeyo cali cusmaan uu soo gala meesha tusaale geedii oo kale bal aan inta ka fiirina inuu kasoo qabanayo waxaan leenahay get /all xogtii oo dhan ay soo aqri haddaa fiirisid geedii iyo qofkii kale cali labadaba waa ku jiraan haddaa raba qof gooni inaan soo aqriyo waxaa leeyahay id1 ii soo aqri waxaan leeyahay id2 ii soo aqri qofka id-gaas iskale ayuu raadin doonaa haddaan rabo inaan update gareeyo but ayaan isticmaali doonaa qofka id2 wato waa cali cusmaan soo maaha ana cali cabdullaahi ka dhigo update haddaan intuu soo laabano aan soo get aan isticmaalo cali cabdullaahi noqday haddii aan database ka fiirinana meesha wuu isbedelay wuxuu noqday cali cabdullaahi oo si saxan ayuu u bedelay haddii aan rabo inaan delete gareeyo aan qof saddexaad oo tirtiro aan kusoo daro waxaan u bixinaa qofkan saddexaad cali cabdullaahi iska ahaado post delete aan dhaho markaan waxaan delete gareynayaa qofka id3 wato intaana delete gareyn horta aan fiiriyo all meesha ma ku jiraan cali cabdullaahi wuu ku jiraa 2 jeer laakiin id-ga ayaa kala bedelan waxaan rabaa cali cabdullaahiga id3 wato inaan tirtiro waxaan leeyahay delete meesha all aheyd waxaan ku bedeli doonaa id3 waxaan leeyahay delete waa la tirtiray hadda haddii get aan dhaho id3 ma jiro all haddii aan dhaho aan fiiriyo id3 kuma jiro databaseka haddii hadda id3 aan run dhaho id3 kuma jiro oo waxa dhacay waa ka delete gareeyay meesha hadda marka databasekeenii iyo applicationkeenii waa isku xiran yihiin oo xogtii meeshaas aan ka sameeyaba inta way iska bedelaya haddii aad fiirisid oo way isla socdaan wixii oo dhan aan soo cancel applicationka aan stop gareeyo customer markaa isticmaalayno
meeshaan waxaan isticmaalaynaa hadda wax loo yaqaano placeholders. meelahan waxaan isticmaalayno waxaa loo yaqaanaa waa placeholder. tusaalehaan add customer oo kale waxaan isticmaalnay placeholder. haddii aad rabtid waxaa isticmaali kartaa wax loo yaqaano maxaa la dhahaa parameterized query oo loogu talagalay meeshii placeholder aan isticmaali lahay in parameterized query aan isticmaalo. hadda kan haddaan isku dayo in parameterized query aan u bedelo waxaan isticmaali doonaa map sql parameter source. tusaale ayadoo sideeda halkan xaba keliya ayaan bedelaa si qofkii uu fahmo, inta kale adiga ayaa bedelan doono. querygan waa parameterized query maxaa la placeholder uu iska leeyahay. waxaan isticmaali doonaa isla asaga oo parameterized ah. waxaan bedeli doonaa keliya queryga meeshaan waxaan ka dhigi doonaa tusaale ahaan kan ugu horeeyo waa id, meeshii question mark waxaan ku bedeli doonaa colon id colon name. hadda marka isagaa clear ah oo si fiican loo fahmi karaa meeshii question mark oo clear aan ahayn which column datadan iska leh. waxaa kaloo isbedeli doono intaan kan la imaanin waxaan imaanaynaa map sql parameter source. sql parameter source waxaan ka abuuranaynaa parameters object aan ka abuuranaynaa. semicolon ma dhihi doono. kadib waxaan leeyahay dot add value aan dotkan hoos soo dhigo. add value markaan dhaho waxaan soo gelin doonaa id-gan iyo valuegiis. waa id parameter nameka, valuegiisana waa ka comma dot comma ma jirto dot add value name customer name semicolon aan leenahay. waxaan samaysan haddii aad fiirisid parameters id-ga wixii ahay waxaa lagu bedeli doonaa customer.get id, meeshii name ahaydna waxaa lagu bedeli doonaa customer.get name. so meeshaan waxaan la dhan u baahan doono waan iska tirtiri doonaa, aan comment iska saaro. waxaan ku bedelan doonaa intaan marka waxaan leenahay parameters variable aan abuurna sooma kanaan ku bedelaynaa keliya control v. meeshii marka aad isticmaali lahayd question mark waxaan ku bedelanay parameter name oo colon laga hormarinayo. all of them sidoo kale ayaa u isticmaali doontaa maxaa la dhahaa kuwan id ayaa dhihi doontaa sida map sql parameter sourcegaan isticmaali doontaa. hadda haddii aan soo rangareeyo bal aan tijaabina inuu sida caadiga u shaqeynayo, insertion keeni inuu si saxan u shaqeynayo in kale qof aan kusoo dari doonaa bal in qofkaas meeshii la geeyo iyo in kale ayaan tijaabinaynaa. waxaan imaan doonaa meeshaan post aan dhahdo qofkan saddexaad aan rabaa inaan xareeyo. waxaan leeyahay send aan fiirino applicationka marangareysan yahay. applicationkani ma noo rangareysan yahay. applicationkani wuu noo rangareysan yahay. valueskii waan kusoo darnay. named parameter jdbc template-ka waa parameterized query. haddaad waxaan isticmaalayna jdbc template. hadda waxaan kusoo darsanay named parameter jdbc template oo asagana constructorkiisii aan soo inject gareyn doono. oo marka ugu horeyso constructorkiisa ma soo inject gareysno, waxaa ku qasbantaa marka constructorkiisa inaad inject soo dhahdid oo aad meesha kusoo darsatid. dhowr jeer kusoo celceliyey aan iska tirtiro. hal mar keliya inuu noo soo geliyaa rabnaa. waxaa leenahay markaa inject constructorka meesha noo soo geli. meeshii marka jdbc template ahayd waxaan ku bedelanay sidoo kale named parameter jdbc template. aan soo tagno
meeshii ahayd insert into customer values oo placeholderska waxaan ku bedelinay parameter name oo colon id colon name. waxaan kaloo sameysanay map sql parameter source variable aan ka abuuranay value aan kusoo darna waxaa waaye meeshii id ahayd parameter namekan waxaa ku bedeshaa customer.getID meesha inta ku sheegaynay inta ayaan ku sheegi doonaa. sidoo kale meeshii name ahayd waxaan ku bedeli doonaa iyadana customer name. hadhowdina waxaan dhihi doonaa JDBC template named kama isticmaali doonaa oo dambe oo aan abuurtay parameterizedka midkan named aa la socoto .update SQL parameterskuna waa kuwaan meeshaan ugu soo dhiibay ayaga ayaan siin doonaa. haddii aad u baahatid marka inaad isticmaashid JDBC oo parameterized ah qaabkaas aad u isticmaali doontaa. haddii aad ugu talagashay tusaale ahaan midkaan sameynayo get customer by ID ama delete kan oo kale hadda haddii aad fiirisid qaabkaan u shaqeynaa. haddii aan rabo inaan isticmaalo parameterized mid ah intaan commentan iska saaro waxaan leeyahay string SQL meeshii where id equal and question mark aan dhihi lahaa waxaan leeyahay colon id. that means parameter ayuu qaadan doonaa meeshii uu ka qaadan lahay placeholder. hadda waxaan siineynaa parameter. haddii aan rabo inaan rangareeyo marka waxaan leeyahay JDBC template named oo named parameterka midka ah. marka hore intaan rangareen aan parameterkaas wax soo siiyo waxaan leeyahay map SQL parameter source waxaan u bixinayaa parameters. sidoo kale waxaan leeyahay equal new empty ayaan abuuran doonaa. waxaan leeyahay markaa dot add value waxaan kusoo dari doonaa add value parameter namekan wuxuu ahaay id comma parameterka aan baas gareynayana variablekaas ayaan u baas gareyn doonaa wixii loo soo dhiibay. hadda waan rangareyn karaa marka waxaan leeyahay JDBC named template named dot update SQL parameterskii ayaan u baas gareyn doonaa. intaan hadda aan qoray waa parameterized query. waxaa uga maarmi kartaa intaan kale oo haddii aad isticmaashid waa same kii waxaa fiican badanaa inaad isticmaashid parameterized inkastoo xoogaa shaqadeedu iska badan doonto. hadda marka labadan haddaa isku fiirisid labadan sadar iyo intaan kale oo 4 sadar waa same. haddii aan hadda soo rangareeyo oo aan tijaabino inuu shaqeynayo iyo in kale aan fiirino waxaan aadaynaa insomnia. waxaan isku dayaynaa marka inaan soo rangareeno si aan u ogaano inuu shaqeynayo iyo in kale. oo soo rangareenay waxaan leenahay meeshaan get customer slash all waxaa noogu jiro 2 customerkan saddexaadaan insert gareena. waxaa leenahay insert qofkii waa la xareeyay. sidoo kale get slash 3 haddaan dhaho slash all cali cabdullaahi 2 jeer uu xareysan yahay. cali cabdullaahi aan fiirino inta mugu jiraa. waxaan ka jeegareynaynaa marka cali cabdullaahi inuu meeshaan noogu jiro. aan ran dhaho 2 jeer noogu jiraa. cali cabdullaahiga dambe haddii aan update gareeyo aan magaca ka bedelo waxaan u bixinaa Cumar Faarax. haddaan update dhaho id3 boot magacii uu isbedeli doonaa wuxuu noqon doonaa Cumar Faarax. meeshii cabdullaahi cali cabdullaahi uu ahaay wuxuu isku bedelay Cumar Faarax. waxaa isticmaali kartaa marka JDBC template oo placeholder iska leh ama waxaa isticmaali kartaa named parameter JDBC template oo ah parameterized query. labadaba waa isticmaali kartaa haddii aad u baahatid. waxaan kusoo koobayaa intaas. githubka ayaan soo geen doonaa. waxaan sameynayaa inaan projectigan githubka toos u geeyo repository cusub ayaan u sameyn doonaa. waxaan leeyahay share project on github demo JDBC
waxaan raacsiin doonaa dash youtube public ayaan ka dhigi doonaa, waxaan leeyahay share. hadhadii waxaad ka heli doontaa linkiga meesha ayaan soo saari doonaa oo arkaysiin. wuxuu noqon doonaa linkiga waa kan Shauria JR. haddii aad qortid usernamekaas waa kusoo bixi doonaa. haddii aan tago aan soo fiiriyo inuu meesha ku jiray in kale, waxaan imaan doonaa repositorieskeyga inuu soo galay in kale si aan u jagareeyo. haddaa fiirisay marka meeshan waxaa ku jiro demo JDBC YouTube. haddii aan kusii dhufto waxaa arki doontaa all contentigii ama koodkii iyo wixii aan qorin oo dhan. mainka haddii aan imaano docker compose waa kana, resourceska propertieski aan sida upgrade all classeski aan sameynayay 3 xababa intay ku jiraan, modelkii, controller iyo servicekii mid ayaa u arki kartaa. hadhow waa la digi kartaa ama wixii aad rabto ayaa ku sameyn kartaa. intaas ayaan kusoo koobayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.